xaflad si bilaaran ay u soo qabanqaabiyeen ardayda u dhalatay dalka Somaliland dhigata jaamacadda St Lawrence University ee dalkan Uganda ayaa lagu soo dhaweeyay wasiirkii hore ee duulista hawada ee dalka Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde asagoo ammaan u soo jeediyay ardaydii halkaas ku soo dhaweysay dhigata jaamacaddan St Lawrence ayaa wuxuu yiri dhalinyarada caawa mas'uuliyadda sharafta leh hablayo inamaba madaxdiina guddidiina dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa runtii aad iyo aad farxad igu caawa inaan idinkala soo qayb galo xafladan sida qiimaha leh u soo qabanqaabiseen haddii aad tihiin dhalinyaradii mustaqbalka ee jaamacadaha Uganda ku jirtay ee reer Somaliland oo runtii aanu arko caawa idindiilo wanaagsan iyo aragti qiimo leh oo ka turjumaysa sida dalkeenu iyo ummaddeenu maanta mustaqbal wanaagsan ay u leedahay ayay ka turjumaysaa caawa xafladan oo kale iyo halkaan isugu nimid sidoo kale Waran Cadde ayaa inta raaciyay safarkiisii uu ku soo marayay dhulka uu noo sheegay inuu ahaa mid aad u xiiso badan asagoo safarkiisii uu ku soo maray dalalka ay kala yihiin Ethiopia, Koonfurta Suudaan ugu dambeyntii uu soo gaaray halkan ee ah dalka Uganda ee magaaladani Kampala haddii aan ka warramo socdaalkayga laba bilood iyo bar buu qaatay intaa uu soconayay dhulkaan marayay diyaarad ma raacin daraw lama wada aniga iyo baabuurkayga isu weynahay waxaan ka soo tallaabay Wajaale anigoo baabuurkaygu Somaliland ku dhagan tahay calanka Somaliland ay suran yahay baasaboorkaygu Somaliland yahay waxaan maray dhammaan gobollada Itoobiya oo ilaa 4,000 kiiloomitir socday waxaa runtii farxad leh cid kasta oo arkaado baabuurka waxaa ku qoran Somaliland far waaweyn taariikhdiisa oo aad loo akhriyo waxyaabaha farxadda geliya waxaa ka mid ah dalka aynu jaarka nahay Itoobiya cid kasta oo aragta waxay jeclaan hataa haddaan socon inay joojiyaan oo dhahdaan bal Somaliland basina waxay tahay sidee weyn baabuurka iyo waddanka uu marayo iyo magaca ayaa aad iyo aad u soo jiitay socdaalkaygaas salkiisu wuxuu ahaa waxa ogtiin dawladda la yiraahdo yara inta dhalatay ee la yiraahdo Koonfurta Suudaan oo ah dawlad aynu soo wada maray jidisku mid ah oo aynu lahayn qadiyad midaysan oo iyana waxaa dhibay oo nafta u keenay oo cagta hoosteeda geliyo ilaahay ku soo arkay qoladana casacasay reer Suudaan taraatukan kabaag soo ayay immigration waxa gelisay computerka Somaliland passport dabadna dhacma ka hawsado immigration ha jiro markaasaan oo marayd barkeed waxa iska soo dhinac baxay calankii Soomaalida caal ham ay bisha iyo kii Somaliland oo baray su'aal buu saxay war Somaliland mar Soomaaliya ma laba dawlad bay kala waqti kala ictiraafsan yahay Yes. Mohammed Hon Cable TV, Kampala.